samee khayrka iyo wanaagga inta aad awooddo haba yaraadee sababtoo ah khayrkoo dhan adigu iyo wanaaggaba ma koobi kartid. goormeed in badanoo wanaagga gaaraysaa haddii aadba ka tagtay kii sii yaraa. haddii aad ceeb ku aragto qof kale naftaada dhig halka uu taagan yahay qofkaasi, kadibna waxaad eegtaa sidee baad jeclaan lahayd in qofkaasi kugu soo qaabilo haddii uu kugu arki lahaa waxaad isaga ku aragtay oo kale. u qari walaalkaa ceebta aad ku aragtay, isaguba wuxuu jecel yahay inaad u samayso wixii aad jeclaan lahayd adigoo ceeb dhexda ka taagan haddii lagu arki lahaa. mar weliba xasuusnow, ma jiro qof awood u leh inuu ku dhibo adigoon u oggolaan. innaga ayaa dadka fursad u siina inayna dhibaan marka aan hadalkooda qiimo weyn u yeelno, aragtiyadoodana aan muhiimad weyn siino, marka wax weliba oo ay dhahaan aan madaxa saaranno oo aan wax walba oo ay dhahaan rumaysanno, isla markaaba waxaan siinay fursad weyn oo ay inagu dhibi karaan. kan maamulo arrinta malaayiinta meerayaasha iyo caalamkan aadka u weynee isdhex socda wuu awoodaa inuu maamulo waxa ku jira qalbigaaga yar. wuu awoodaa inuu xaaladaada ilbiriqsi ku beddelo, keliya isaga tala saaro allah subxaanahu wa tacaala. qiimaha qofku mar weliba maaha waxa uu haysto ee waa waxa uu bixinayo oo waxtar wanaag iyo siisma ah. qorraxduba waxay haysataa kulayl daran, haddana caalamka ayay siisaa iftiin qurux badan. martidaada karaamay oo sharaf xitaa haddii ay tahay marti yasan. fadhigaaga uga kac aabbaha iyo mucallimkaagaba xitaa haddii aad tahay amiir ama madaxweyne. ha noqon qof tilmaamay cibro qaadashada haddana aan ku cibro qaadanayn, dadka kale wax ka sheega naftiisana ammaana. iska ilaali deeqsi weligaa ha dullaysan, doqonkana weligaa ha sharfin, caaqilkana ha dhibin, faajirka dulmiga badanna ha la noolaan, doqonkana ha la kaftamin. ogow, maalmuhu waa labo, maalin adigu aad leedahay iyo maalin dushaada ah. maalinta aad leedahay oo ay kuu toosan tahay ha kibrin, maalinta dushaada ah ee dhibka ku saaran yahayna sabir. ogowna labadaasiba way dhammaan doonaan. saaxiibbadaadu waa saddex, cadowyadaaduna waa saddex. asxaabtaadu waxay keli yihiin saaxiibkaaga iyo saaxiibkaa saaxiibkiis iyo cadowgaaga cadowgiis. cadowyadaaduna waxay kala yihiin cadowgaaga, cadowga saaxiibka iyo saaxiibka cadowgaaga. raaxada jidhku waxay ku jirtaa cuntadaada oo yar, raaxada naftuna waxay ku jirtaa dembiyadaada oo yar, raaxada qalbiguna waxay ku jirtaa inaadan israaraacin shay markaa qalbigaaga ku jira, raaxada carabkuna waxay ku jirtaa hadalkaaga oo yar. caqliyada laguma qiyaaso da'da. meeqa cunugoo yaryar ayaa caqligoodu cajiib yahay, meeqa rag waaweyn ayaa caqligoodu maran yahay oo faaruq yahay. haddaad wax ciqaabaysa ha aarsan, haddii aad wax asturaysana ha jaajuusin, haddii aad sabartana ha sheegan. wakhtiga haddaad nidaamsato waasic buu noqdaa, cidhiiri buu kugu noqdaa haddaad dayacdo. haddaad wax cafiso dib ha ka soo gocan, isaga tag waxaan ku qusaynoo dhan. aqri, sadar ba allaha ka dhigee, wax uun samee, hal fikir ba allaha ka dhigee. haddii aad maalin arrin ku fashilanto ha ku degdegin inaad go'aan ka qaadato go'aankaasi ood weligaaba ka shallayn doonto. fikir aan howlqabasho lahayn waa doqonnimo, howl aan fikir lahaynna waa culays. dulqaadku waa weel daboolan, caqligu waa kan arrimaha kala gooya. dulduleelka dabeecadahaaga ku astur dulqaadkaaga, hawadaadana ku dil caqligaaga. asxaab waxaa ugu fiican qofku soo qaabila oo kuu yimaada garabna ku siiya marka wakhtigu kaa daba jeediyo. ilaasho oo xafido asxaabtaada. zamankan asxaab wanaagsan si loo helo waxay noqotay dhif iyo naadir.